sida dhaqaatiirta ay xaqiijiyeen waxay sheegayna in wadanka dibadiis wax lan ka qabado karo aan dalka wax lan ka qabado korne. Mas'uud lacagtas aan baahan waa $25,000 mana yani wax weyn hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala asna waafajiyo aan gurmano Mas'uud aan garab istaagno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Siin salaami meel walbas adduunka roogtaan waa walaalkeen Yaasir Axmed Geeslab. YouTube-kas oo fiirsadayto waa Geeslab Official. intii muuqaalkeena aan bilaabno ka hor waxaan ku codsadeeyay muuqaalka like saar, share garay, wixii fikrada ahna commentiga hoos in ka reeb. muuqaalkeena maanta waxaa ka saabsan yahay Mas'uud Aweys Khadar. Mas'uud waa wiil dhibana ah oo ka nool degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Waanjeel. marka hore muuqaalsha aan isla fiirsano kadib wixii oo faahfaahin ah gadaal ayaan ka daree insha Allah. A few moments later. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad dunida ka joogtaan waxaan idin rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. wiilkan yar ee idin muuqda magaciisu waa Mas'uud Aweys Khadar oo da'diisu tahay 13 jir. Mas'uud waxa uu inooga baahan yahay garab istaag dhab ah. Mas'uud waa wiil yar oo la dhiban dareen la'aan dhabarka ilaa iyo lugaha, kaas oo aan ku socon karin lugihiisa, sidoo kale aan xitaa ceshan karin saxarada. sidaas oo ay tahay Mas'uud waxa uu rajo weyn ku qabaa ku socodka lugihiisa isaga oo jecel waxbarashada si uusan uga harin asaagiisa. Mas'uud dalka wax waa looga qaban waayay waxaana goordhow loo qaadi doonaa dalka dibadiisa. walaalaha Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa inaad garab nagu siisaan Mas'uud in uu ku socdo lugihiisa. ma heli karnaa walaalo garab inagu siiya caawinta wiilkan. walaalayaal Mas'uud muuqaalsha aragteena mude. Mas'uud waa wiil 13 jir ah oo dhibana ah oo ka nool degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Waanjeel. Mas'uud waxaas dhib zaa'id ka qawee dhabarka ilaa iyo lugaha. runtii waxaas aan baahanyaa gurmad degdeg ah in la gurmado in yani oo maanta garab sheele istaago. sida dhaqaatiirta ay xaqiijiyeen waxay sheegayna in wadanka dibadiis wax lan ka qabado karo aan dalka wax lan ka qabado korne. Mas'uud lacagtas aan baahan waa $25,000 mana yani wax weyn hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala asna waafajiyo aan gurmano Mas'uud aan garab istaagno. si walba aan garab istaagno. waalidiinta dhaleen Mas'uud waxaas aan kala xiriiraysaana nambarada shaashada siin ka muuqda. muuqaalkan muuqaalka xiga inta aan ka kulmo doono waxaan siin ka taweeyay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.